أهلا فيك يا أحباب مركز تدرون الدافية كتشوفتان ما أنت حسوا قادنا دوانا أونلي سنيل شيتي نروشي صور أم حنشكو سدي دونا إن أنا سوا كابنا سنيل وحدة شيء كوفيد 1 أغسطس 1961 كي سنيل شيتي أكتر كلية معها وسيدو كلوا مرتي كلية سيدو كلوانين بيزنس مانا وفيلم بروديوسر وحبضان أيوني كان اسكو درسداي حتى وحولي هاي ميل اللي يراهدو فيتنس أونلاين waxaa jira cricket-ka inuu qayb cricket ka mid ah inuu captain ka yahay waxyaabo fara badan ninkan isku darsaday Sunil bariyahan iyo maalmahan u dambeeyay social media warwareegay kadib markuu interview bixiyo ku saabsanaa aabihii iyo businesskiisa wuxuu ku leeyahay ninka sadad ogsoontihiin xagga businesska aad buu u fiican yahay taasna waxa uu sababay aabihii ayaa ku fiicnaa wuxuuna sheegay in aabihii isagoo 9 jir uu ka yimid magaalada Mangalore hadda waa 9 years waa 9 jir oo kaliya aabihii wuxuu la dhashay 3 hablood bila aabana uu ahaa agoon buu ahaa ilmo yar oo 9 jir adigoo imagine qiyaaso ilmo yar oo 9 jir oo magaalo ka yimid magaalo weyn oo caasimada yimid oo shaqo raadiyay kadib wuxuu aabihii ka bilaabay inuu miisaska masbaxo halka waxay iskaga mid yihiin Akshay Kumar laakiin Akshay Kumar markaas xogaa intii taamalaw ka weynaa adoo oo aabana uu lahaa miisasku masbaxay markuu miisaska masaxay waxa lagu leeyahay bac bariis oo aabihii ku seexan jiray hadda waa bacda bariiska laga shubo kadib wuxuu dalacay maamul noqday hotelka isagaaba yeeshay wuxuu yiri 3 hotel oo aaba ka shaqeyn jiray uuna isagu markii dambe uu noqday maamulihiisa ayaan aniguna markii dambe aan xoojiyay oo aan la wareegay oo aan si balaariyay oo aan yacni ganacsigayga asaas ganacsigayga aabahay dadaalkiisii number 1 ahaa marka wuxuu yiri oo sheegay in aabihii uu yahay role model xagga ganacsiga iyo xagga dadaalka noloshooduna ay si fiican marka dad badan loo eego ay ku soo noolaayeen maadaama aabahood aad u dadaali jiray wuxuu ku leeyahay aabo dabeecadiisa dhaqankiisa iyo bini'aadnimadiisa isaga hadii bini'aadnimada wanaag lagu sheegay isaga ka raacay way qof wanaagsan buu ahaa cadaalad darrada uma qaadan jirin wuxuu oran jiray waxaygo dhan intaan iibiyo bomba ka iibiyo ayaan tuuladeeda ku soo noqonayaa ayaan ku noqon karaa laakiin xaq darro uma dul qaadan kara buu oran jiray aabahay Sunil aabihii maadaama 3 hablood la dhashay waxba moodaa filinka 5 hablood iyo shoodar raabo filinka qofkii daawaday iyo qisada aabihiina xoogaa isku soo dhow yihiin way aabihii 3 hablood ee walaalihii ayuu guurkooda caafimaadkooda waxbarashadooda wax walba ka fikir jiray halkaas inuu sheegay filinka 5 hablood ee shoodar raabo isna uu saas oo kale sameeyay marka waxba moodaa filinkaas inuu bilcaani bareer uu qaatay maadaama aabihii ku xasuusanayay waayahay taas waxay ahayd qisada aabihii oo aad iyo aad ugu faraxsanaa okay Sunil Shetty isaga shirkadda Bollywood-ka intii uu ku jiray waxay ka talaabaysaa 30 iyo dheeraad sano sababta 30 iyo dheeraad oo iminka uu galay waxay ahayd isaga weyn ognahay waa 60 waayo isagoo weyn oo sodoneeye ayuu isagu ku soo biiray shirkadda Bollywood-ka isaga iyo Heritage iyagoo xoogaa waaweyn ayuu ku soo biireen oo aan yaryarayn sababtuna waxay ahayd isagu filmada iyo waxaas niyadiisa ku jiray weyn ognahay 12 jir iyagoo Amir Khan iyo Salman Khan ku soo biiray samaha khaanadu laakiin isaga filmada waxaas ku jiray nin ganacsado ahaa dukaan yar buu iska lahaa dukaanka yar baa la yiri waxa uu tagi jiray shubay ninkan Sheikh Sharif la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo Salman Khan ee dukaankiisa iska tagtagi jiray sida dibaarta fanaaniinta oo kale asxaab booska dadka filmada matalo adoo asxaab la aha iyaga ku dhiirigeliyay ku yirni oo actor wad noqon kartaa adoo qofku ku yiraahdo fanka wad gali kartaa wad heesi kartaa jid baad leedahay caadi ma tihid wal ugu baahan yahay iyaga ku qalqaaliyay dabadna waxa oo maqlay bal hadalkoodii bishir bas ka soo tijaabay taas waxay ku xadanaysaa Sunil Shetty inaan faqr iyo faqirtinimo iyo lacagtoona aanay Bollywood ka soo galin waxa loo dhiibay egg or wallet filimkan loo dhiibay isagoo isla bal tijaabi laakiin filimkan nasiib darro 1991 kii bay ahayd inuu soo baxo waa laga kansalay waxaana looga kansalay dadkii filimka iska lahaa ee sheerka ku ahaa ayaa isfahmi waayay dabadna tukaankiisa yar iskaga noqday haddana waa loo yeeray filim kale balwaan la yiraahdo dooda garanaysan filimka ku soo baxay ayaa loogu yeeray filimkaas oo aad iyo aad loogu amaanay dad badanna ay maanta magaciisa u yaqaanaan balwaan okay Sunil halkiiba filmadiisii ka sii waday ilaa uu 100 iyo dheeraad filim maruu dorcaawiye yahay maruu laadar yahay iyo maruu actor yahayba uu ku soo qaatay noloshiisa Bollywood-ka actor kan طبعا فيلم بدن oo macmacaan buu leeyahay oo aan caadi ahayn filmada ugu jeceshahay balaadu caraf ku dhafaan filmka number 1 aan ugu jecelahay filmadiisa waa dadkan
filimka iigu xiga aan jeclahay xagga maaragtay emotional ahaan iyo dareen waa filimka aajaas la yiraahdo filimka basbaaskan oran jirnay filimada kale dilwaale ajee kula jiro iyo ama door caawiya uu ka yahay filimadaasna waa filmo waaweyn oo deetaya leh filimka Menhona uu Shahrukh Khan boos ka yahay xitaa maalintood uu ka sheekeynayay wixii Shahrukh Khan waa qof bini aadan oo wanaagsan filimka Menhona markii aan ka wada shaqeynaynay waxa la yiri Shahrukh Khan oo sunisheeti qaraac oo ma garanaysaa feer iyo laad iyo de ma garanaysaa bahdil maadaama isagu boos ka yahay Shahrukh Khan baa yiraniyo macquul ma noqonayso oo de feeraha xididtada leh iyo ninkan waxaan ku yiri gabgiisba de saa u soo weyn ilaahay baa weyne de feer iyo laad kaga badin maaye wax macquul ah loo baahay dadka in loola tage isagu hay garaaco garaacista isagu aad hay garaaco mid kalena marka u dambeysana bambadu baan gaanjada uga saaraya mooyaane ninkan de anu ma oran karo waa soo dilo naftan ka soo jaray ma oran karo ama jeel baan soo dhigay marka saasan u qorshay marka wuxuu yiri yani sida uu aqligiisa u shaqeynay ka yaabay waa filmka isaga power ku lahaa Soomaha Shahrukh wuxuu yiraahdaa socon lahaa laakiin wuxuu yiri wax macquul ah dadka ula tagno wuxuu yiri marka saasa filmkaas uu dhacay Shahrukh Khan ixtiraamkaas uu hayaa maadaama de wixii fahmay nin intaas oo suun haysta fadhiyahana dagaalyahana waa tabti dib Shahrukh laftigiisa ogow 10 hore asaas oo kale ugu soo dhaco filmkii Kiran ayuu de mindi galiyay Soomaha sanadiyol markuu mindida galiyay sanadiyol oo xanaaq jiray nin de khatar aan ahaa military soo tababartay soo mindida inay kari galay talaftigiisa 10 bay ugu filaad wuxuu ninkan feedha weyn daa isku ceebeen markii hore iska inaan yaro yaanyo oo baad soo baxay laakiin marka de legend sal dhigtay baa tahay sunisheetay de xaqiiran bishiri sunisheetay xoogaa isku yar fiican isku muxma iyo Shahrukh Khan marka sidaa darteed ayaa filmkaasna horta saas noogu dhacay Shahrukh Khan halkaasna amaan hawada u marinayay marka filmadiisa filmka aan dadkan aajaas Menhona booska sida uu cadaabay Shahrukh Khan I like it walaad baan uga helaa caadi maaha waa ku raaxaysanaya filmkaas dilwaale filmo badan adigu ayaan jeclahay dhinaca kale actor kan xagga jacaylkiisa hadaan dib ugu yar noqon intaan caruurtiisa u galin isaga iyo Manna Shetty waxaaskiisa marka la weydiyo la yiri yani ina isa isugu raagtaan waa maxay sirta ka dambaysa macna guusha inta leegeed mustaqbal iyo guur aad ka gaadheen aad caruurtiina korsateen ilaa imka isku farxsantiin fariinta isku tiin marka wuxuu yiri walaayda aniga Manna siyar isku mar soo galin aniga Manna aad baan isu jeclayn waxaan isu jeclayn muddo 9 sano aan isu jeclayn gabadhan xitaa waxa jirtay aabaha iyo hooyaday way ii diidi jireen gabadhan ha guursan gabadh kale ii keen jireen haddana gabadh kale ii keen marba gabadh kale sanad walba sanka iga soo gelin jireen ana waxaan jiray aabe hooyo anu tiina kama soo horjeesanayo haddad inantan ii diideen okay waan ogolahay laakiin mid ma idin sheega aniguna tii aad ii keentaan guursan maayo saas nolosheeda bilaa guur u ahaanaya markay reerkii arkeen inaan kaga dhabeeyay oo aan naa kala doonayn iyada mooyaane ay aakhirtaanka ii aqbaleen saas ayaana aan isku guursanay jacaylkaas ayaan isku guursanay waa dad iskala soo halgamay ma dad wasida Goori Khan iyo Shahrukh Khan oo kale xaaladaas waliba kuwan dawab la suudiida kuwa la sumay wadiidin halka markay marayso sheekadu 1991kii ayay ilmahooda curad inanta Atiya ay u dhalatay 96kii 92 bay inantu dhalatay 96kina ina ka dhashay 91kina way isguursadeen ka horna wuxuu carabka ku dhuftay barigay sheekaysanayeen ninkan inuu weligii fashionista ahaa oo xaragada iska jeclaa oo mooteer baa la yiri buu yiri baan wadan jiray shaarka badhamaha furi jiray timaha dheer baan lahaa jirkeygu dadka kale dhalinyarada kale ka duwanaa jir yar oo demokrasi adag oo waxaan ku yiri jimicsiga aad u jeclaa weligeeba markaas dadku eegi jireen macna ninkan ajiib macna laabtan sa u furan jiray fashion aan weliga dil aqoon ayaan sameyn jiray markaas dadka qaar laabta markaan furto shaarkayga laabta furto ayay hablo xaman jireen markaas waxa la gabadha waa gabadh dulqaad leh dad badan ba igu diri jiray oo oran jiray macna waxay ninkan ila bariga dad badan ba negative oo arkay moogtayn ayaa la suuqofka oo arkay markuu sida u labisto marka wuxuu yiri gabadhaas soo isfahanay saasaan sokortay sawirtay ilaa imika sugunnahay caruurtoodana weyn ognahay Atiya iyo ahaan ayay dhaleen ahaan weyn ogeen filmkii tadab 2021kii ku soo baxay filmkaas uu 2 abaalmarinood cajiib ku qaatay sida Eva Award iyo The Sharp Balki Award oo imika wuxuu soo wadaa 2025 oo hawshii shaqadiisii bilaabay filmka la yiraahdo Hamraas inantana weyn ognahay inkastoo iyada in badan xiriidadeeda horta inanka aan ku noqday
inan la yiraahdo Tania Sharaf ayay inanka isaga laftigiisa 12 sano isjeclaayeen muddo badan bay isjeclaayeen laakiin nasiib darro imika waqtiyada u dambeeyay waxa la sheegay labadaas ay kala tageen dhinaca kale Atiya hadaan u galay Atiya waxay matashay filimka Hero Suurat Bancholi ayay la matashay iyadoo in badan la isku xamin jiray looran jiray way isjecel yihiin haddana waa laga booday mubaarakan bay matashay Arjun Buurana Kapoor baa la yiri waa isku sokortay sababta in badan baa la isku xamanayay haddana markii dambe ninkan KL Raul ayaa la ogaaday inay isjecel yihiin oo 2019 February xiriirkooda bilaabeen laakiin December ayay xiriirkooda shaaciyeen maadaama in badan la isku xantay oo la yiri macnaa malaag waxan guur ma soo wadaan oo iska ciyaal suuqeynayaan oo inantan niman badan lagu xantay ayuu isna sirtii dibadda keenay isjecelnahay boostiye soo dhigeen way isku faaneen vacationay meel kasta way wada tageen adoo aakhiritaankiina way iskursadeen oo ku guurkoodii ka dhabeynay marka reerkaasi waa reer aad iyo aad isugu faraxsan kaale iska arag weeye waa reer yaro maasha Allah ah ya waa reer yaro aad iyo aad isugu indhakusho isjecel way waalidkooda wanaagsan odaygu suu macna sunisheed suu jecel carruurtiisa gabadhu macna maana sheetisay odaygu u jeceshahay wuxuu ku leeyahay igu dulqaadan xitaa watii isaga bari lagu xaman jiray Soomaali bandari adirshadii waqti la isku xaman jiray looran jiray sokorta in badan waxay way dulqaadatay dadku wax kasta sheegayaan may ahayn sida xaasaska kale oo nimanka ku booda oo yiraahdo ama ka hada ama film dabahla metelin aad bay ugu dulqaadan jirtay marka yaan badel iyada dhinaceeda mid baan badhigi karaa uu taagan yahay inantan iyo KLna tisasay sokorta isku ninkan marka ciyaartooyga xagga cricketka ahaana nasiib darro waa ka gabadhii Tania Sharaf ay kala tageen laakiin imku raadinaya search garanaya xabad kale marka asxaabteeda qiimo badneed ee Sunisheeti oo qisadiisa aan soo koobay waa taa aad baad mahadsantiin Sunisheeti filmadiisa keebad ugu jeceshahay